hadlaynaa maxay yihiin maxayse ka kooban yihiin imise qaybood ayay u kala baxaan miinooyinka la aaminsan yahay in Iiraan ay dhigtay badda gunteeda hoose ee marinka Hormuz wixii ka dambeeyay dagaalkii ugu dambeeyay ee Iiraan ay ku qaadeen Mareykanka iyo Israa'iil waxa Iiraan ay si buuxda ugu dhawaaqday inay xirtay intii dagaalku uu socday marinka Hormuz isla markaasna miinooyin fara badan halkaasi la dhigay miinooyinkan ayaa isugu jira kuwa badda salkeeda la geeyay iyo kuwa kale oo sabaynaya biyaha marinka Hormuz taasi waxay keentay in ay halkaasi ka gudbi waayaan ilaa iyo 150 markab oo ka gudbi jiray halkaasi bil kasta xaaladdu imika way adag tahay inkastoo heshiis la gaaray Iiraan waxay sheegtay in qayb ka mid ah marinka Hormuz uu furan yahay isla markaasna wadiiqada la mari karo iyagu ay og yihiin ayna mas'uul ka yihiin meesha la marayo laakiin haddii aan maraakiibtu aysan ka qaadan fasax ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan in markaasi maraakiibta la beegsan doono oo qatarna ay ku geli karaan haddii ay maraan wadiiqooyinka dhanka badda ee aysan ansixin in la maro Mareykanku waxay ku andacoonayaan in marinkaasi uu furan yahay laakiin qobarada arrimaha militariga waxay leeyihiin arrintan waxay qaadan kartaa muddo 6 bilood ah waa in laga soo saaro marinka Hormuz dhamaanba miinooyinka la dhigay inta waxa dheer diyaaradaha drone-iska iyo gantaalada oo ku foorara marinkaasi Iiraan waxay ka dhigatay marinka Hormuz kaarka ugu weyn ee ay ku gorgortamayso Israa'iil iyo Mareykanku nuclear bay ku hubaysan yihiin laakiin Iiraan waxay ku hubaysan tahay marinka Hormuz haddaba miinooyinkan iyo qaabka ay u baxaan wax badan ayaad ka fahmi doontaa ee barnaamijkan dhamayso isla markaasna barnaamijkan goordhow aan u gudbayno haddii alla idmo maxamed cadde ayaa soo ururiyay xogahan oo idin qadka ku jira maxamed hadda maxay ku bilaabatay warbixintu toddobaadkii la soo dhaafay dowladda Mareykanka iyo Iiraan ayaa waxay saxeexeen heshiis safgarada lagu goleeyahay in lagu soo afjaro dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ay Iiraan ku qaadeen iyo sidii dib loogu furi lahaa marinka Hormuz nidaamka badmaridda Hormuz ayaa wuxuu yahay mid muhiim u ah shidaalka caalamka kaasoo ilaa iyo intii heshiiska la gaaray ay maraakiib marayaan laakiin khabiiradu waxay sheegayaan waqti ayay qaadanaysaa in maraakiibta ay ku soo noqdaan heerkii ay ahaan jireen wixii ka horreeyay dagaalkii bilowday February 28-keeda shirkadaha maraakiibta iskale iyo caymisyada diiwaan geliya oo caymiya ayaa digniin ka bixinaya marinka Hormuz weli inuu yahay meel aad khatar u ah inta badanna cabsida la qaba ayaa waxay tahay miinooyinka badda oo Iiraan ay ku isticmaashay marinkaasi waxaana digniin laga bixinayaa in khatarahaasi ay daba socdaan in colaadda intii lagu guda jiray Iiraan ay sheegtay in ay isticmaashay miinooyinka ka dhanka ah maraakiibta oo noocyo kala duwan ah oo lagu xiriyay marinka Hormuz si ayna u marin maraakiibta halka Iiraan ay ku hanjabayso in ay maraakiibtaasi ku horjoogsanayso miinooyin haddana wax faahfaahin kama bixin ciidamadeeduna ma sheegin meelaha ay miinooyinkaasi dhigtay Iiraanna waxa ay u isticmaalaysaa marinka Hormuz awood ay wada hadalka ku gorgortanto oo ka dhana Mareykanka iyo go'doominta ay ku samaysay badda caalamiga ah oo xanibaad ku soo rogay caalamka oo dhan in qalalaase uu ka bilowdo xagga shidaalka waa gartay haddaynu warbixinta sii dhex muquuranno miinooyinkan waxaa leeyahay way kala duwan yihiin dhowr qayb bay u kala qaybsamaan inoo faahfaahi maxamed sida heshiis ku xusan hordhaca ee la gaaray ee safgaradka Iiraan ayaa waxaa looga baahan yahay inay miinooyinka muddo 30 maalmooda ay ka bixiso meelaha ay gelisay xaaladana ay u diyaar garowdo lagu furayo marinka Hormuz Faransiiska iyo Britain ayaa ah wadamada dadaalka badan ku bixin doona sidii miinooyinka loo saari lahaa waxaa sidoo kale taageeraya wadamada Jarmalka, Talyaaniga, Japan iyo Canada waxaa intaa dheer in miinooyinka badda la dhigay inay badda gunteeda ku jiraan oo ay qarax sameynayaan loogu talagalay in wax lagu yeelo
ama lagu dejiyo maraakiibta miinooyinkaasi inta badan waa raqiis sida lagu soo saaro hase ahaatee bixintooda iyo sidii looga hortegi lahaa ayaa kharash badan ku baxaya miinooyinkaasi waxa ay waxtar weyn ku leeyihiin inay hor istaagaan ama xiraan wadaha maraakiibta khadadka ay maraan iyo howlgallada badda noocyo kala duwan oo waxaa jira miinooyinkaas ka mid ah oo ku qasbaya maraakiibta inay wadooyinka iyo wadiiqooyinka wareegaan sicirka shirkadaha caymiskana qaali ayuu noqonayaa haddii uu xirmo mid ka mid a marinada waaweyn ay maraakiibtu maraan noocyada maraakiibta miinooyinka maraakiibta ka dhanka ah ayaa kala duwan waxay isugu jiraan kuwa badda gunteeda la dhigo oo waxay fariisanayaan badda gunteeda waxaa la dhigaa meelaha biyaha ayna moolka weyn ahayn sida marinka hormuus oo kale iyo khadadka ay maraakiibtu maraan mar allaaliya markii markabka uu u soo dhowaado oo codkiisa iyo sharqantiisa maqlaan cadaadis ayay wax ku dareemayaan kadibna markabka dushooda maraya ayay ku qarxayaan badda guntiisa isagoo jooga miinada iyadoo taallo waxayna abuurayaan gaas waxyeello gaarsiiya markabka meelaha ay wax ka gaarsiinayaan markabkana waa markabka hoostiisa weeye waxaa laga yaabaa inay biyo galaan ama uu dego miinooyinkan aad ayay u dhib badan tahay in la helo ama dabagal lagu sameeyo maxaa yeelay waxay u ekaan karaan dhagaxyada badda hoosteeda yaalla iyo burbur kale iyo waxyaabo kale oo badda hoosteeda muddo badan ku jiray miinooyin waxaa jira ayagana badda gunteeda lagu soo xiro oo biyaha korkooda in yar wax ka hooseysa sabeynaya oo ay fiila ku xiran tahay waxaana lagu tilmaamaa in miinooyinka noocaana lagu arko sawirada goobaha dagaalka waxa ay qarxayaan markii markabka uu taabto ama uu agtiisa maro ama meel ku dhow uu soo maro maxaa yeelay way sabeynayaan oo biyaha korkooda meel u dhow ayay sabeynayaan laakiin markabka ma arki karo sababtoo ah dusha sare ma saarna maraakiib waxaa jira marka hirka iska raacaya oo kuwa sabeeya la yiraahdo ama drifting mine ayaa la yiraahdaa ama drifting mines waa adag tahay in lagu xiro badda hoosteeda hirka ayay la socdaan waxaana weeye miinooyinka noocaan la saadaalin karin mar haddii badda la dhex dhigo dhinac ay rabto oo ay biyaha u jihaysan yihiin ayay raacaysaa isbeddel joogta ayaa hirarku sameeyaan hadba dhinac bay u socdaan miinadana mar haddii meel la dhigo waxa ay gelaysaa safar aad u weyn waxayna khatar gelinaysaa maraakiib ka fog fog meelaha colaadda ka jirta ama meelaha loogu talagalay saraakiisha badda ka shaqeeya ayaa dhowr goor ku celiyay ama digniin ka bixiyey in khatar weyn ay ka imaan karto maraakiibtan sabaysa gaar ahaan kuwa marinka hormuus la dhigay maxaa yeelay waxa ay xirayaan dhammaan marinkii oo dhan noocyo waxaa jira iyagana la yiraahdo lampet mine la yiraahdo ama miinada lampet baa la yiraahdaa waa ka yaryar yihiin miinooyinka kale waxaa lagu xirayaa markabka hoostiisa waxa uu leeyahay barqabato lagu qabanayo markabka laftirkiisa oo ku dhegeysa waxaa ku xiran waqti loogu talagalay inay qaraxdo inta badan miinadan waxaa markabka hoostiisa geliya dad quusayaala oo u ogolaanaya inay ku dhejiyaan markabka isagoo dekad ku xiran ama isagoo badda gunteeda dhexdeeda maraya mar allaaliya markay ka fogaadaan ayay qarxinayaan waa gartay arrinta ugu daran maxamed waxay noqon kartaa qaar ka mid a miinooyinkan inaanba la ogaan karin arrintaas marka halisteeda intee la gaarsiisan tahay warbixintu sheegaysaa miinooyinkan nidaamka lagu nadiifiyo ama lagu xaaqo ee loo yaqaano ka hortagga miinooyinka ama MCM waxa weeye waa nidaam gaabisa howlgalkiisa uu ballaaran yahay wuxuu u baahan yahay in la helo miinada horta meeshay taalo kadibna
qalabkii burburin lahaa ama xaaqi lahaa meesha looga shaqo qabo loo diro sida miinadaasi loo qarxin lahaa ama loo goyn lahaa miinooyin kale oo waxaa jira la yirahdo miinada ugaarsatada ah ama hunting mine ama mine hunting waxaa ugaarsada maraakiib gaara oo waxay wataan dareemayaal biyaha hoostooda drones ku soconaya oo meel fog laga hagayo waxa uu sawir ka qaadayaa badda gunteeda nidaamyadan casriga ah deegaan badan ayaa lagu sahmin karaa macluumaadna laga soo gudbin karaa loo soo gudbinayaa dadka hagaya warbaahinta reer galbeedka qaar ayaa ku waramaya in Mareykanka iyo ciidamada badda ee xulafada la ah inay aad isugu haleeyaan drones badda gunteeda la dhigo iyo robotyo iyo diyaaradaha helicopter ah oo lagu ugaarsado miinooyinka ayadoo la raadinayo signal la raadinayo markii signalka la ogaado ayaa dadka howlwadanada waxaa waajib inay ogaadaan goobta miinadaas ay ku jirta kadibna deegaanada ku hareereysan oo dhan ayaa waxaa la dhigayaa waxyaabo lagu kala ogaanayo inay dhagax yihiin waxa inay birdaqowdo meesha ku jirta tahay in qalab kale uu yahay kadib markii la hubiyo ayaa qaraxyo la dhigayaa lagu qarxiyo kadib marka miinadii la ogaado oo la qarxiyo ayaa waxaa dhacaysa dadka khabirada ah ee quusa ayaa badda gunteeda u degaya si ay u soo ururiyaan haraageeda oo loo ogaado nooca ay tahay iyo waxa ay tahay iyo inay ayaga qarxiyeen oo kale iyo inuu baabuurka qarxiyo mataqaanaa qalabka ay wataan inuu qarxiyo iyo in kale waxaadna moodaa maraakiibtan xaaqaya miinooyinka waxay isticmaalaan agab ay jiidayaan oo badda gunteeda miinooyinka yaalla nadiifinaya ogaanaya meelaha ay miino kasta taalo kadibna waxaa la jiidayaa fiilooyin iyo dhuumo aad u waaweyn oo soo gooya oo gunta hoose meeshay ku xiran tahay ka soo gooya kadibna markay kor timaado ayaa la isku dayayaa in la qarxiyo nidaamyo kale oo waxaa jira ayagana qalab kala jiidaya oo markab iska dhigaya kadibna u been guuraya miinada ayada oo aanan hadafkii haleelin ayay qarxaysaa waa gartay maraakiibtan miinada xaaqda ama gurta qaabkee bay u shaqaynayaan midda kaleeto maxay tahay marka sababta ay u adkaanaysaa in miinooyinkan la helo iyo saameynta arrintan ay ku yeelatay ganacsiga maxay warbixintu ka sheegtay badda in miino laga helo waa aad u adag tahay oo adigoo irbad ka raadinaya badda oo kale waxa weeye miinooyin badan hadday yeelaan iyo dee mid taalaba kulli waa dhib badan yihiin sababtaas weeye maraakiibtan badda xaaqa ay u yihiin kuwa sita qalab aad u xoog badan oo ka hortegaya in wadooyinka ganacsiga la carqaladeeyo saacado ayaa maraakiibta meesha lagu keeni karaa laakiin toddobaadyo iyo bilo ayay qaadanaysaa in maraakiibta badda laga guro waa ka duwan yihiin miinooyinka gantaalada gantaalka mar alaali markii la riday isla markii ayuu meesha haleelayaa laakiin miinadani badda gunteeda ayay taallaa waxa weeye baddana waa furan tahay xilli kasta ayay diyaar u tahay inay wax weerarto waxaana haddii la xaqiijiyo in miino ay meel ku qaraxday khadkaasi wuu xirmayaa sababtoo ganacsigoo dhan ayaa istaagaya xataa haddii war kuteena la sheego badda ayaa miino lagu arkay haddii la yidhaahdo oo ururada ama shirkadaha caymiska ay maqlaan sicirka caymiska kor ayuu kacayaa waxaana cabsi ay gelaysaa dadka ka shaqeeya injineerada ah sidii ay deegaankaasi ku gelayaan haddii miino laga sheego maraakiibta waaweyn ee qaaliga ah shidaalka qaada iyo kuwa xamuulka qaada ee waaweyn malaayiin boqolaal milyan oo dollar ayay joogaan shirkadaha caymiskana lacag badan ayay weydiisanayaan warbaahinta reer galbeedka qaar ka mid a ayaa ku waramaya shirkadahan maraakiibtan
badda xaaqa howlgalladooda gaar ahaan marinka hormuus in uu toddobaadyo badan soconayo kadib intaanan dib loo furin hormuus oo heshiiskani uu meelmar noqon. waxaana waajib ah khadadka la marayo in si fiican loo baaro lagu noqnoqdo ka hor inta ayna shirkaduhu ogolaanin in maraakiibta ay wakiilka yihiin ay badahaasi si nabadgelya ku mari karaan. waa gartay arrintaas aa soo hadal qaaday maraakiibtu inay si nabadgelya ku mari karaan marinadaasi maxaa shirkadaha maraakiibta iskale iyo kuwa caymiska had iyo goorale ay u qabaan welwelka iyo cabsida? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. waxa weeye maraakiibtan aad arkaysid casriga ah ee xamuulka qaada ee shidaalka qaada dhisidooda waa dhib badan tahay. markabka asagoo markab baaxad weyn leh ayuu kala xirxiran yahay oo u kala xirxiran yahay compartments waxa la yidhahda qayb qayb si markabka unu u rogmanin maadaama uu shidaal qaadayo. shidaalkii ayaa qolo leh biyaha badda ayaa lagu dheelitiraa. xirfadda iyo sidii loo sameeyey kharash badan ayaa ku baxay. shirkadaha caymiyana markabkaasi waxay ka caymiyaan waxa weeye cillad farsamo inay ku timaado oo badda ah, laakiin cillad dagaal looma caymiyo. markabkan marka boqolaalka milyan oo dollar jooga, shirkadda lagu cayminayo waxay rabtaa markabkan inta uu jiro in ay lacag ka gurato ay ku cayminayso waxyaabaha farsamada ah. laakiin markabka haddii mar burbur iyo dhibaato ay soo gaarto, markab cusub ma rabaan inay gadaan oo malaayiin dollar kharash uu kaga baxayo. waxaa ku haray shirkadaha iskale maraakiibta waaweyn iskale waa og yihiin badda ayay intaasoo sano ka shaqaysanayeen. badda siday u khatar badan tahay iyadoo aanan miino lagu xirin, hirarka dhulgariirada hawada isbedelaysa, roobabka, waxaasoo dhan ayagoo ay ogsoon yihiin. haddii dagaal uu ku biiro waxa weeye shirkadahaasi isla markiiba waxay go'aaminayaan maraakiibtooda inay meelahaas isku aadin, sababtoo ah masiibooyinka bini aadamku sameeyo waa ka khatar badan yihiin kuwa dabiiciga ah. kuwa dabiiciga waa la qiyaasi karkaa. markabka haddii hirar waaweyn ay ku kacaan, meelo wuxuu leeyahay uu biyaha qaar iska daadinayo ama biyo uu kordhinayo oo isu dheelitirayo. wax badan bay badda ka shaqaynayeen. laakiin markay timaado xaalad khatar ah oo miina ah timaado ay markabka duleeliso oo culayskii uu lahaa ay culays ku darto, markabkaas badda gunteeda ayuu fariisanayaa. khasaaraha maaha keliya malaayiinta baramiil uu wado ee shidaalka maaha khasaaraha. waxaa khasaaraha inta sii dheeraanaya markabka lacagtii laga bixiyey, shaqaalihii oo qaali ah, iyo in markabkaasi laga yaabi lahaa in uu jiri lahaa 20 sano ama 30 sano. marka shirkadaha caymiska iyo shirkadaha maraakiibta iskale xiriir toos ayaa ka dhexeeya. waxay leeyihiin hay-ado ka warama badda meelaha khataraha ka jiraan, xiriir joogta ayay leeyihiin. haddii mar xataa haddii la sheego meeshaasi miina taal haddii la yidhaahdo waxa weeye cid walba la wargelinayaa oo lama sahlanayo. waa gartay haddii heshiisku hirgalo oo la yiraahdo miinooyinka waa la saarayaa ama waaba la gurayba, arrintaasi saamaynta ay ku yeelan karta dhaqaalaha caalamka muxuu yahay? imisayse qaadan kartaa in wax walba caadi kusoo laabtaan? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. waxa weeye haddii mar heshiis la gaaro hawshani way bilaabanaysaa 6 bilood ilaa 7 bilood